Audio Jungle. Audio Jungle. sidii laydinku sheegayba waxay ka socdaan UNOPS sababtay halkan u yimaadeenna shalay baanu saragnay waxay ahayd inay sameeyaan assessment ku saabsan intaa wasiir Faatax uu sheegayay hadday dariiqyada tahay hadday tahay dekadaha iyo airportada hadday gaadiidka tahay iyo haddii ay customerska border customerska tahay oo iyaga laftooda loo ictiqaadsan yahay inay yihiin dekado runtii mar walba loo baahan yahay daryeelkooda iyo infrastructure-koodaba in la dhiso marka waxaan rabaa salaanta guud markii aan dhaafo inaan uga mahad celiyo UNOPS oo ay maanta inagala joogaan Javier iyo Amir shaqa runtii muhiim oo laxaalana u socda taasoo maraan shalay la kaftamayay aan ku idhi had iyo jeer alle waxaanu helaa dad soconaya oo leh intaa waxbaanu qabanaynaa assessments fara badanna sameeya markay garoonka ka duulaan baana noogu dambaysa hase ahaatee UNOPS ma aha iyagu sidaa waad la socotaanoo mashaariic fara badan bay ka hayaan dalka ka ugu weynaad qabataan inay wax ka dhiseen jeelka weyn ee quruxda badan ee garowga ku yaala muxuu ahaa station police fara badanna waxay ku hayaan way cusboonaysiinayaan marka niman iyagu aynu aragnay wax qabadkooda weeye insha Allah iyagana shalay waa la dardaarmay waxaan ku yidhi shaqadiinii horena aragnay tin dambana waynu arkaynaa marka waxaa goobtan lagu casumay badiba inta ay khusayso shaqadooda waxaan jeclahay inaad yeelan doontaan isuna heli doontaan waqti dheeraada waxaa looga baahan yahay wasaarad waliba inay garan karto baahideedu waxa ay tahay una soo gudbin doonto madaxda ka socota UNOPS runtiina saddexda sannadood soo socda 6 sannadood ilaa iyo 10 sannadood ee soo socda inay waxaan socdaan waa yani yaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in yani wasaarad waliba maskaxdeeda waxa baahidu tahay ay ku kordhiso ay u dhiibto iyaga sidii wax looga qaban lahaana laga wadashado aad iyo aadna waa idiin salaamayaa shirkuna waa inoo furan yahay insha Allah waxaa loo baahan yahay wax ku oola wadaba wax ku oola shirkana inay ka soo baxaan haddii ogolaado ilaahay ogolaado ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan reer Puntland faa'iido u ah danna u noqon doonta insha Allah aad iyo aad baan idiin salaamayaa shirkuna waa inoo furan yahay